السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كينا مانتا إن شاء الله تعالى وحنكو قادا ديجي دونا gobolka Oklahoma oo isna soo rogay sharci cusub oo ku saabsan xagga ku hadlida luqadda Ingiriiska dadka taraagyada wada iyo dadka basaska wada oo loo yaqaano commercial driverska. Aqalka hoosana ka soo gudbay biilkaas oo dhigayo in shuruucdii gaari ku wadida gobolka Oklahoma wax laga bedelay. Waxa la bedelay waxyaabo yar sharcigan badana horu u sii jiray laakiin waa la wadaagi doona. Waxa marka ugu horeysa ay soo rogeen English language proficiency luqadda Ingiriiska in aad si fiican ugu hadli kadid intii kugu filan bay yiraahdeen. Iyaga waxay kaga duwan yihiin Arkansas sufficient ereyga la yiraahdo ay ku dareen in kugu filan in aad ku hadli kadid luqadda. Laakiin waxa Oklahoma Arkansas ay kala mid tahay in qofka luqadda uu ku hadli karo kow in uu qori karo labo in calaamadaha uu fahmi karo saddex iyo qodobka afraad oo ah in haddii lagula soo xiriiro ama police ama ambulance ama firefighters oo emergency serviceska qolyaha qaabilsan hadday kula soo xiriiraan in aad u jawaab celin kartid oo aad ka hadli kartid ama aad report gareyn kartid. So luqadda Ingiriiska iyagana waxay rabaan inay soo rogaan sharci ah in luqadda Ingiriiska qofka uu ku hadli karo. Taas waa qodobka labaad oo ay ku soo dareen waxa waaye qofka ku jooga viisaha B1ka oo ah viisa dalxiis ah iyo viisaha B2ga oo ah qof business u jooga dalka Mareykanka intuu soo qaato license CDL ama company ama wadankiisa baa ku lahaada haduu rabe hadaa tourist tahay gaari commercial ah oo weyn oo truck ah ma ku dhaxwadi kartid stateka Oklahoma ay idan soo rogeen. So viisaha tourismka ah oo dalxiiska u jooga iyo viisaha ku jooga ganacsiga midna gaari commercial ah kuma dhaxwadi karo stateka gobolka Oklahoma ay soo rogeen. Inta waxa dheer waxay yiraahdeen CDL-da ama laysanada commercialka ay gawaarida lagu wado waa in ay Mareykanka, Mexico iyo Canada kaliya ay yihiin. So qofka wuxuu laysan ka haysan karaa Canada, Mexico iyo USA bes ay aqbalayaan. Commercial license wadamo kale aad kala timi Oklahoma kama shaqayn doono anymore markuu biilkan uu soo baaso aqalka sare oo hadda doodiisa ay ka bilaabanayso oo shalay uu u soo gudbay. Marka waxay yiraahdeen qofka kale oo ka imaanayo Mexico iyo Canada dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa ka timaada oo darawalla ah oo taraagyo wada. Waxa aan arkayaa biilkan waxa ku jira qofka waa in uu haystaa valid work visa valid ah oo aan dhicin oo u ogolaanayo dalka Mareykanka in uu ka shaqaysto. So tan markii ma waxay joojin doontaa isku socodkii caadiga ahaa oo Mareykanka iyo Canada ka dhaxeeyay oo stateka makaligiisa ayaa joojin doona ma naqaano. Mid kale waxay yiraahdeen qofka ka imaada Canada iyo qofka ka imaada Mexico waa in uu wataa warqadaha cadeynayo wadanka uu ka haysto commercial driver's license-ka in uu muwaadin ka yahay. So waa inaad passport ama wax aad wadataa ku dheer oo la socda CDL-kaaga license-kaaga la socda. Qofka marka hadii laga waayo arrimahan iyaga ah waxa dhacayso baa la yiri in gaariga laga impound gareeyo oo laga la wareego oo dawladda ay qaadato. Ganaaxa qofka viisaha aan wadanin oo ka dhax shaqeynayo ama lagu dhax qabto stateka wuxuu noqonayaa 2,000 ilaa 5,000 oo dollar inta u dhaxaysa. Waxa arrinkan ka hor imaaday wakiilo ama representatives ka soo jeeda dhanka dimuqraadiga kuwaas oo ku andacoonayay in gobolka uu weyn doono dhaqaale fara badan oo ka soo gala darawallada gobolka dhaxmara ay soo galiyaan. Sababtoo ah waxay yiraahdeen waxay ku doodeen biilkan hadii uu baaso waxa dhici doonta in ganacsiyo fara badan iyo taraagley fara badan darawallo badan ay ka wareegtaan stateka oo gees laga maro halkaasna waxaan ku luus garan doonaa bay yiraahdeen ama meeshaas aan ku weyni doonaa dhaqaale badan oo stateka ay soo galin jireen darawallada soo dhaxmara. So intay soo dhaxmari lahaayeen iyaga oo sharcigan ka cararayo
marka hore Oklahoma waa iska dhibadneed oo iska way station badneed iyagoo sharciga ka cararayo ayaa waxa ay samayn doonaan inay ka wareegtaan state-ka halkaana state-ka khasaare ayaa ugu jira laakiin ninka biilka dabada ka riixayo oo isagu keenay waxa uu ku doodaya oo sheegay in state-ka ama gobolka kaliya ay gaari ku wadi doonaan dad qualified na ah oo laysankooda la jeegareeyay luqadina yaqaana iyo dad wuxuu dhahay safe drivers ah meeshaas marka doodaas way socotaa Oklahoma waxa ay ku soo biirtay state-yada require gareynayo in luqadda Ingiriiska lagu hadlo waxa kale oo soo faragashaday meeshan qolyaha la yiraahdo OIDA oo loo yaqaano Owner Operator Independent Driver Association loo yaqaano ayaa iyagana soo faragashaday marka iyaga hadda waxay ku doodayaan intii maalinba state iyo gobol uu la imaan lahaa sharci cusub sharcigan luqadda Ingiriiska in lagu hadlo dowladda federaalka ah oo Mareykanka ayaa waxa ay baasisay 2005 so sharcigaas isaga ah haddaba waa required already laakiin stateska waxa dhacday in sharcigii aan lagu samaynin enforcement dowladda hadda qofka markii la istaajiyo sharcigaas booliska ama state patrolka ama qofkii ku istaajiyo oo boolisa badana luqadda xooga ma saaraan marka sharciga waaga la soo saaray wuxuu ahaa 2005 in qofka luqadda aan ku hadlin laga dhigo waxa loo yaqaano out of service oo halka la fariisiyo gaariga uusan wadi karin taas oo systemka iyo recordka intaba u galaysa marka qofka sharciga isaga ah waxay leeyihiin qolyahan OIDA hala soo celiyo dalka Mareykanka oo dhan si uu hal mar u noqdo blanket oo federal uu noqdo intii maalinba state sharci cusub uu la soo bixi lahaa iyo si gooniya inay wax u target gareeyaan gobolada oo sharciyo gooni u soo kala saartaan intaas marka dhacday Oklahoma waxa ay ku dayatay state-ka Arkansas wali sharcigan hadda biilka wuxuu soo gudbay aqalka hoose wuxuuna u gudbay aqalka sare ee gobolka uu iska leeyahay gobolada inta waxay leeyihiin state representatives iyo state senate bay leeyihiin so senate-ku uu soo gudbay senatarada ayaa iyagana markooda ka doodi doona waxay ka soo kordhaha duulaha idmo waan fiirin doonaa kan Arkansas isaga uu dhaqan galay gobornatorahana wuu saxiixay waana sharci luqadda inaad ku hadashid laakiin kan Oklahoma hadda ay wadada ku soo jira si fiican ayuuna u soo baasay oo hadda xildhibaano badan ayaa u codeeyay marka insha Allah taala wixii ka soo kordha waan fiirin doonaa waan idin salaamahay don't forget to share the video like ta anagala baqaylin insha Allah hadaan ugu cusub tahayna subscribe to the channel wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh